بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعيبه هو انجينير نور جامع حاشي waxaan ahay mid kamida macallimiinta Hano Technical University farsamada gacanta iyo tababarada waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galo maalinkii labaad bandhig cilmiyeedka Somali STEM Summit kaasoo lagu soo bandhigay xarunta Hano Academy waxaan ku faraxsanahay inaan sidoo kale aan u qabanay ardadeenada tababar يعني هرمرنتا حرفضها قعنتا وحلو يقانو hands on experience مشاريعدان runtii aad iyo si strategically aan u balangareynay ama u qorsheynay waxay diiradda saarayaan qaybta STEM project STEM sida ogtihiin waa science technology engineering iyo mathematics kaasoo diiradda saarayay sidii STEM loo horumarin karo wadanka gudihiisa iyo sidii aan kor loogu qaadi lahaa yani wacyiga iyo capacity-ga dhammaan si guud yani ardada Soomaaliyeed iyo sidoo kale ardada Hano Technical University Hano Academy iyo sidoo kale dadka innovatorska hobbyistiska dadka sidoo kale entrepreneurship-ka dadka talentiska leh aad u daneynaya mashruucan STEM project waxa sidoo kale xusid mudan in mashruucan STEM project ay ku hoos jiraan ama ay ku lamaansan yihiin mashaariicda la yiraahdo looga faa'iideysan karo waxa la yiraahdo Internet of Things oo la soo gaabiyo IoT iyo sidoo kale mashaariicda kale ee la xiriirta qaybta yani kacdoonka warshadaha oo loo yaqaan Industrial Internet of Things marka dabcan mashruucan mashaariicdan soo bandhigna waxa kamid ahaa sidii rain dropper sensor ayadoo la isticmaalayo Arduino Uno oo ah microcontroller kaasoo controlaya the system-ka marka mashruucaas wuxuu muhiim u yahay in qofku uu helo digniin ka hor inta uusan roobka imaan wuxuu muhiim u yahay sidoo kale wax loo yaqaan okorinta qofku hadduu okoro lahay sida qalab elektroonig oo casri ah sidoo kale dhar banaanka kugu warna iyo wax la mid ah marka mashruucaas wuxuu xalina wuxuu dirayaa alarmi ka hor inta uusan roobka imaan marka si uu qofku iskugu diyaariyo inuu okorto ama inuu markaas wixii u baahan inuu maaragtay roobka uusan ka damage gareyn sida qalabka elektrooniga kale marka waxa kamid ah mashaariicda aan meesha ku soo bandhignay mashruuc cabiraya wadna garaaca oo loo yaqaan heartbeat ayadoo la isticmaalayo Arduino iyo sensor mashruucaas wuxuu muhiim u yahay waaxda ama sidoo medical department-ga ama medical health care ku muhiim u yahay wuxuuna ka caawinaa inay cabiri karaan wadna garaaca bukaanka ka hor inta aysan ku sameyn operation-ka ama inay ogaa karaan qofkan wadna garaaciisa taasoo yani ka siinaysa sawir yani cad qofkan xaaladda uu ku sugan yahay normal miya abnormal miya iyo sidoo kale qofkan yani si guud xaalad conditionska uu ku sugan yahay okay mashaariicda sidoo kale aan soo bandhigna waxa kamid ah oo aad ka xiiso u leh mashruuc lagu talagalay fire fighting system-ka ama dabdamiska kaasoo magaciisu ahaa wax la yiraahdo flame sensor ayadoo la isticmaalayo teknolojiyada kaasoo yani qofka u diraya waaxda damdamiska ama sidoo kale waaxda difaac madaniga ka hortagta dab iyo maaragta haday kacaan waxaan ognahay sidoo kale ogtihiin oo aad ka dhirigsantihiin maalmahan yani ama muddadan dambe inay magaalada Muqdisho ay ku soo kordheen waxaan dhismayaasha casriga ee aad ka wada dheer dhowrka biyaana ah sida G+1 iyo yani wixii ka sareeya marka yani apartmentiska soo iyo sidoo kale dhismooyinka waaweyn waxa ka kici kara dab taasoo inta badan ognahay sida yani dhismayaasha har iyo hamiin ama dabka kaca yani suuqa weyn ee Bakaaraha oo kale iyo suuqyada waaweyn marka wuxuu xalinaa in la helo digniin wax loo yaqaan si yani qaybta damdamiska ay hadiiba goobta u soo gaaraan una damiyaan يعني dabkaas inta uusan gaarin waxa ogtiin sidoo kale inay yani korontada Soomaaliya oo runtii ay ka shaqeeyaan dad maaragta aan xirfadlayaal ahayn inay sababto mararka qaar ama dad yani ay suurtagal tahay inay yani ama si qaldan loo geliyo ama gudaha guriga ka dhaxdhacdo inay sababto inta badan waxaad ogtiin yani inay sababto yani dab taasoo yani ay tahay in qofku ogaado dabka markuu kaco si damdamiska u soo gaaro mashaariicda waxa kamid ahay mudnaanta leh mashruuc diiradda saaraya oo dareemaya wax loo yaqaan sidoo kale street lighting-ka ayadoo la isticmaalayo wax la yiraahdo photo resistor iyo LDR mashruucaas wuxuu diiradda saaraa in yani solar street lighting oo kale waa energy efficient kaasoo noo beeqaaminaya ama noo dhaqaaleynaya tamarta laambadu waxay darnaanayaan kaliya habeenkii maalinkii markii ay arkaan natural light ama cadceedda dabiicigana way damayaan laambadu marka sidoo kale mashaariicda oo mudnaanta leh aan rabno inaan meeshan ka sheegno waxa kamid ah mashruuc traffic light-ka oo runtii hadda ku soo aaday xilligii baahidiisu ay aad u taagantaa loo baahay wax la soconaa magaalada Muqdisho in jidadka ay aad cariir u yihiin waxa sidoo kale la soconaa in magaalada Muqdisho يعني inta badan hadda jaam laga kulmo dadku haday ahaayeen dadka shaqada u socda kuwa u socda maaragtay goobahooda shaqo
taasoo yani u baahan xal degdeg ah. Marka anagoo taas maanka ku hayna ayaan waxaan isku daynay inaan samayno oo ardada aan faham ka siino sidoo kale ku tababarno sidii xal lagu heli lahaa. Marka waxaan diiradda saarnay in xal loo helo. Ardadu waxay barteen sida street lighting ama wax loo yaqaano solar, wax la yiraahdo traffic light, sorry qaybtaas yani traffic light ko kale in maaragtay sida loo xiro, sida loo yani u shaqeeyo, iyo sidoo kale sida maaragtay si yani badqable lagu hergeli lahay wadooyinka magaalada Muqdisho. Marka sawiraan ka siinay walow waa waqti cariir nagu ahaana, insha Allah waa rajaynaa mustaqbalka hadii Ilaahay yiraahdo inaan sii horumarino mashaariicdaas iyo mashaariic lamida. Sidoo kale mashaariicda kale hadda aan ka xusi karo meeshan ardada aan ka siinay sawir guud oo runtii taabanaya dhanka kobcinta yani karaanka ardada Hano Technical University iyo sidoo kale dadka wax ka barta Hano Academy. Waxa kamid ahay mashaariicda, waxa kamid ahaa mashruuc aan dhihi karno, waxa kamid ahay in temperature sensor oo kale in la cabiri karo heerkulka goob mucayan ah. Tusaale ka soo qaad guri ama goobtaada isbitaalka oo iyadoo la isticmaalayo teknolojiyada casriga sida temperature sensor iyo Arduino iyo teknolojiyada la halmaala. Sidoo kale ardada waxaan diiradda saarnay inaan barno wax loo yaqaano simulation software iyo inaan barno physical ayadoo la isku xiraayo. Sidoo ayadoo ardada yani waxa waaye loo ogolaaday ama yani diyaariyay agabkii si dhammaystiran, agabkaasoo ah agab STEAM ah, kaasoo yani la isku xiraayo software-kii oo ah runtii yani software-radu inta badan waxaan ognahay waa muhiim. Waxay muhiim u yihiin sidii loo heli lahay laabab ama experimentiyo suurtagal ah ayadoo la yareynayo qarashka ku baxa laababka lagu sameeyo tababarada iyo sidoo kale educational institutionska. Marka muassasaadka tacliimiga ee Soomaaliya waa inay yani waa isticmaali karaan. Waxaan sidoo kale arday ama dadkii ka booqanaya oo ka kala yimid jaamacadaha kala duwan oo kale aan sawir guud ka siinay sidii muassasaadka ama educational institutionska ay u isticmaali lahaayeen software ayadoo yani laga maarmayo in yani qarash badan la geliyo laabab ama sidoo kale yani waxa waaye qalabka mudnaanta u leh markaas ardadu inay ku sameeyaan yani practicalka. Marka runtii mashaariic aad iyo aad xiiso u leh ayay ahaayeen. Dadkii nagala soo qayb galay isugu jiray ardada jaamacadda, ardada Hano Academy iyo sidoo kale dad visitors ah oo yani booqasho noogu yimid. Dadka yani inta badan danaya mashaariicda STEAM-ka runtii waa u riyaaqeen, waana ka mahad celiyeen. Annaguna sidoo kale waa ku faraxsanahay in maaragtay yani haddaan nahay yani macallimiinta Hano Technical University in yani aan u helnay platform aan yani kula xiriiri karno, kuna soo bandhigi karno mashaariicda mudnaanta u leh hadda looga baahan yahay waddanka. Iyo sidoo kale in ardada ay ka faa'iideysteen runtii ardadanada oo ah ardo inta badan kaga duwan ardada jaamacadaha kale oo ah arday yani inta tahay Hano Technical University yani ay tahay university level yani wax loo yaqaan waxbarasho oo farsamo gacan oo ku salaysan oo heer jaamacadeed yani waxaan dhihi karnaa waa jaamacadda kaliya ee farsamo gacan ee ka jirta magaalada Muqdisho. Marka taas waxay mudnaanta siinay inaan annaga aad diiradda u saarno wax la yaqaano hands on experience-ga iyo xirfadaha farsamada gacanta, iyo in ardaygii uu awoodo wax loo yaqaano ardada waxaan ku tababareynaa inay awoodaan wax loo yaqaano learning by doing, asagoo ardaygu inuu wax barto asagoo wixii gacanta ka shaqaysiinaya. Marka waxaan ku talinaynaa oo sidoo kale yani waxa waaye u soo jeedinay oo aan kula dardaaranay ardadii ka faa'iideysteen mashaariicda iyo sidoo kale dadkii ka qaybgalayaasha ahay inaysan mashaariic ku istaagin meeshii aan uga tagnay oo ay mustaqbalka horumariyaan ayagoo ku sii daraya waxyaabaha kale teknolojiyadda leh sida tusaale ahaan teknolojiyad casrina ah, sidoo kale qarash yar ku baxayo cost effective, iyo sidoo kale sidii ardadu ay u isticmaali lahaayeen yani alternative solutions oo ah xalal kala duwan. Marka dabcan intaas yani waxa waaye aan diiradda saarnay, waana ku faraxsanahay inaan maaragtay fursad u helnay inaan maaragtay sidoo kale waxaan celinaynaa bahda meediyaha oo sidoo kale runtii yani waxa waa gaarsiinaya codkanaga meel uusan gaari lahayn haddii la'aantood. Marka sidoo kale aad iyo aad ugu mahad celinay. Waxaan sidoo kale mahad celinaynaa Hano Academy oo nasiiday platformkan STEAM ama wax loo yaqaano qaybta STEAM labka, taasoo yani naga caawisay inaan keeli karno dhammaan agabkii uu ku diyaarsan yahay, kaasoo inta badan yani ay tahay in agabku uu yani waxa halkaas ku diyaarsan yahay. Marka sidoo kale waxaan mahad celinaynaa dhammaan inta nagala soo qayb gashay iyo inta aan nagala soo qayb gelin yani ay suurtagal tahay inay naga arkaan ama nagala socdaan yani social media, hadduu ahaa lahay Facebook, hadduu ahaa lahay Instagram, hadduu ahaa lahay iyo dhammaan TikTok iyo meel walba oo platform oo dadka iskula xiriiraan. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa fursad kale sanadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo mashaariic intaas ka horumarsan iyo inaan sii horumarino mashaariicda hadda meeshaan aan ku barnay. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin. Waan idin salaaminaa. Thank you very much. You are welcome.